aabba macaan waa ku baryaa ha idilin walaalkay iga weynaa Idriis Axmed ayaad hortayda ku gowracday aabba midida ha ii celin ilaah baan kugu dhaarshay aabba ha idilin waxaan ahay wiilkaaga waan soo korayaa aabba macaan ha idilin waa qayb ka mid ah hadalladii uu oranayay ka hor inta aan la khaarijin Sakariye Maxamed oo walaalkiis iyo isagaba oo aabihii dhalay uu ku gowracay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waliba dhanka Puntland maxaa ka jira in hooyada dhashay labadan wiil oo ay odaygan horay u kala tageen inuu ku arkay iyada oo niman kale la haasaawayso sidaas darteedna maseer uu ka qaaday uu labadeedii cunug uu nafta dhaafiyay waliba isagoo guri keensaday oo gowracay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa arrin argagax leh fadlan muuqaalkan dhammaanteen aynu si niyad ah hal mar u sheer garayno si uu u gaaro ummad fara badan oo Soomaaliyeed sidoo kalena muuqaalkan like saar si uu u gaaro ummad fara badan oo arrinkan ka damqata hal mar qaybta hoose ee commentiga si niyad ah aynu ugu duceyno inuu Ilaahay qalbiga u dhayo hooyadii dhashay caruurtan oo haatan xaalad halis ah ku jirto waad ku mahadsantahay daawade la jahanqaadkaaga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug gaar ahaan dhanka waqooyi oo ay Puntland ka arrimiso waxa maanta ka soo yeeray war aan farxad garin dhammaan dhagaha muslimiinta daawade halkaas waxa lagu khaarijiyay marqura laba wiil oo isla dhalatay wiilashaas oo lagu kala magacaabi jiray ee baweynaha u naxariistay Idriis Axmed Maxamed iyo Sakariye Axmed Maxamed waxaana dilkan geystay Axmed Maxamed oo ah wiilasha